baa laga wareystay cabdixaafid aa ku wareystay waxaad quuri weysay heesti falaq iyo wixii aan soo sameeyay si aan karkariyay leela baleela ila qoray ila karkariyay maqaayada ila shiday ka dambeeyay inaan mataqaana aan heesi karo oo aan nacnacay karo ka dambeeyay ilaah baan kugu dhaarshay intaas baa u quuri weysay leela baleel waxaanu ognahay in oo maqaayada kula shiday waxaanu ognahay heeso badan inuu kugu qoray waxa kasta ayuu kula sameeyay waa aad ku jisaartay jisaar ayaad ku noqotay waxaa kaloo sheegtay heesihiisa heestii ugu horeysay adiga aan la soo sameeyay in ay ahayd hees 1 milyan ama ku dhawaad milyan in la daawato oo horeba aan la aqoon taa markii la yiraahdo horta leela baleel iyo CK maanta hadii la dhaho qaf yaa geeyga Soomaalida ku magac weyn anu ma hebel ma dhahayo dadka ayaga laga rabaa CK leela baleel qafka magac weyn oo geeyga Soomaaliyeed ku magac weyn idinkaan la ka rabaa qora noo soo qor السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتك كحرة جنال كيام قلبي وفشيال ديستيال إيداه وضيال سودة وهذا ملك استاذ جوكتان والرويال فاميلي هي آد بان انكو حيسي أفرتن سيدي الساعة وحمو قال الصمان الضوين واندين حيسي دمانتين وايد إن شاء الله وحان ربا إنان بالله كربح وبيرك كربح الشيكي الليلة بليل لوادي نين دان يردها عيش كسر وضع عني أصحابتها مقايدها بدن كسر وضع مقضي بهذا بيرك اسكال بحية وحاربها إن الله وضع قف عن كهله وعن كلاتي دقه حياها براها بالشدة سقطها في صدين channel كهذا كحسب تاع سبسكرايب كساره وبلاش جنبلاي كفره مقايدة برسدن ساوسي شرقري هذا وما سنتاي حاربنا دجالك كم حكوب بالعودي CK نيكليرا مالمها مادام الشينا على يسهيين بالليلة بالليل انستغرام لايف waxa uu ka dhex yiri hadallo turtuur ah ninka kana hadaladii buu ka soo jawaabay marka waxa rabaa bal inaan ku bilaabo leela baleel aan bal isla dhageysano hay leela hadaan rabtid inaad tartan gasho waa inaad ogolaataa guusha iyo guul darrada hadii laga badiyo ogolaaw hatta badisana ku farax laakiin sometimes hadii laga badiyo inaad dadka cunto ma ahan ani qofna ma caynin qofna ma cadaabin عاديات وصح صحيح ها قفكي بدي يوم باشاق مانشستر يونايتد يس تيمكي بدي لما قريه ما لا قريه ولا شيء ها اوكي marka wuxuu ka wadaa CK ishina culay shina badiyay wiisabi iyo CK-na wiisabi yaa badiyay sidaas baan u fahmay bal haye horta waxaan ka dabageynaa qof walba wuxuu leeyahay ama CK hadda laftirkiisa wuxuu leeyahay aniga rag la dagaalaya maxaa iigu soo darsantay horta run waay haye kiisma ogtihiin ha CK ina unfollow isdaan Instagram-ka ha iyadoo xitaa dagaalka dahra cala soo iishama boosan bilaaban aad waxaan ognahay kaliya inaad afalos dheen magaalooyinkii oo tagay iyo wadamadii oo tagay dadkii asxaabta ahaa ee soo dhaweeyay ee maqaayada u shidaayay dhamaantood anfalow buu dhahay kaliya ma haya Stockholm dhalinyaradii isla joogeen anfalow base dhehen Göteborg anfalow base dhehen Finland anfalow base dhehen Turkiga anfalow base dhehen Greek dhalinyaradii geysay anfalow base dhehen Nairobi anfalow base dhehen Muqdishona anfalow base dhehen I don't know why bal haye leela baleelow waa la ogaa anigu waa ogaa YouTube kuma soo fadhiisanayo hadda ku sheega brother Instagram laftirkiisa ka dhex qeynayso ha afkaaga xiro aniga ma aqaano qof la weeraro ama dhabarka laga toogto hay inta la dagaalin ka hor aan adi isdagaalnay laakiinse waan iska aamusnay afkayga xirtay haddana adaa weerar igu soo qaaday weerkan xaq waxa uu leeyahay isdifaaco sidaa wada ognahay dagaalka leela baleel iyo CK waa oo soo marxalad badnaa magaalada Göteborg ee wadanka Sweden show bay ku wada qabteen waa isdagaaleen oo habeenkii waa la kala celceliyay leela baleel xataa marka uu magaalada Göteborg ka laabanay iyo CK waa isdagaalsanay leela baleel xataa maalintii xataa asoo careysan oo si degdeg ku laabtay lacagtii oo ka dhacay showga lacagtiisa la isku khilaafay leela baleel wuxuu yiri nin musaafir aan ahay nin waxaan ahay hadda qaarada ku cusub
nin waxaan ahay qaaradda ku cusub marka wuxuu yidhi ii sheeg maxaa la lahaa lacagta ugu badan percentageka 6 bilood percentageka ugu badan waa inaan ani qaataa ninkaana wuxuu yidhi ii sheeg maxaa la lahaa ma dhici kartod oo mataqaanaa anaa maqaayadda shitay CK horta mar kasta wuxuu aaminsan yahay Leila Baliil oo si qarxiyey aniga Leila Baliil waxaan maqli jirnay anoo yaraan dhegeysan jiray Leila Baliil Leila Baliil anoo yaraan daawo jiray oo dhegeysan jiray nimanka kan marka lacagihii show iyo taburi waa la isku dagaalay CK lacagihii ugu badnaa asagaa dhacay waa ay heshiiyeen dagaalkoodu waa soo mudaystay marka oo Malaysia aadayo Leila Baliil oo Jarmalka show ku shidanaya CK waa is dagaaleen wuxuuna dadka u sheegay in Leila Baliil ay sinacu soo galeen oo asaga loo soo galay Sweden iyo taburiga kaga sheekeena Sweden haddii aad keensato qof dhintay hadda oo show soo dhagsado dadku waa iska imaanayaan macnaha waa wadan iska entertainment iyo waa dad wadan waxa waaye dadkiisu farxadaha iska jecel yihiin caaw haddaad soo dhajisid calima dhow haddaad soo dhajisatid wallahi waa loo imaanayaa marka showga Sweden baa u qarxay marka wuxuu aaminay in mataqaanaa showgaas dartiis oo ku qarxay Leila Baliil oo meel gaari karin wuxuu aaday Malaysia oo aaday Leila Baliil Jarmalka oo show ka dhigtay maqaayadiisa waa ushit anigu waxaa ninka ugu horeeyay oo ka soo hadlay habeenka isku dhaceen lacagahaas iskugu dagaaleen dad badan baana ii sheeg maxaa lahaa igu dhiirigeliyay fiideogaas iyo muuqaalkaas sida aan uga hadlay iyo waxyaabaha jira oo qarsoon dadka ka daasoon marka anigu waxaan rabaa bal inaan ogaado CKO waxaan ku weydiinaa walaalow gacday waxaan ku weydiinayaa adiga horta maxaa kaa qaldan my friend what is wrong with you qaf kasta waa la dagaale qaf kasta la culeysan tahay macnaha dhaqankaagu muxuu yahay sheena culaya isqabateen waxaa isqabateen ii sheeg maxaa lahaa Ayub Kaarla isqabateen liicaato iyo asaga xataa waa isdagaalsan yihiin liicaata isqabateen qaf in isqaban ma lahan Turkiya isqabateen Nairobi isqabateen Sweden baa isqabateen Xamar baa isqabateen ina aad ragacda anigu marka waxaan fahmi waaye behind of camera-daadan xun oo dhaqanka xunaa wax ka bedeshay dadka ku soo dhaweeyay dadka ku marti sooray dadka dabka kuu shiday kuu kala kiciyay maxaa ugu jisaartaa oo mar allaala marka aad laabato no face-ka ula ciyaartaa bal ilaah baa ku dhaarshay bal xoo yiri asaguna waxa ku nacasnima ama ku fulinima haye dagaalka ku jirto xitaa dagaalkaagu ma wada dhamaadee dagaalkaagu adeer ma wada dhamaadaba maxaa garaacisay in adeero gacaliya maxaa garaacisay CK adeero gacali cimaamadu waa kaa dhacday cimaamadaada soo cesho nin weyn mataqaana dhaqankiisa yeelo dhaqankaagu waa dhaqankii ii sheeg maxaa la yidhaha dhowclaha dhaqankaagu dhaqanka ragga waa uu ka tegey Leila Baliil waa uu soo gacan qabtay maalin hore barnaamij baa lagaa wareystay Cabdixaafidaa ku wareystay waxaad quuri weysay heesti falaq iyo wixii aan soo sameeyay si aan karkariyay Leila Baliil ila qoray ila karkariyay maqaayada ila shiday ka dambeeyay inaan mataqaanaa aan heesi karo oo aan nacnacay karo ka dambeeyay ilaah baan kugu dhaarshay intaas baa u quuri weysay Leila Baliil waxaanu ognahay in oo maqaayada kula shiday waxaanu ognahay heeso badan inuu kuu qoray waxa kasta ayuu kula sameeyay waa aad ku jisaartay jisaar ayaad ku noqotay waxa kale oo sheegtay heesihiisa heesti ugu horeysay adiga aan la soo sameeyay in ay ahayd hees 1 milyan ama ku dhawaad milyan ee la daawato oo horeba aan la aqoon taa markii la yiraahdo horta Leila Baliil iyo CK maanta hadii la dhaho qaf yaa geyga Soomaalida ku magac weyn anu ma hebel ma dhahayo dadka ayaga laga rabaa CK Leila Baliil qafka magac weyn oo geyga Soomaaliyeed ku magac weyn idinkaan la ka rabaa qora noo soo qora marka anu waxaan leeyahay CK walaalo gacali intaas soo qafaad seesataan dadkaas oo dhan wada xuma adaa dhaqankaaga xun yahay walaalo gacali dhaqankan dhaqan maahan ii sheeg maxaa la nin rageed maahan
dhaqankan iska bedelaan ku dhihi lahaa oo dadka la macaamil oo macaamil samayso waa royal family oo idin lehe shuba digirta still waa student intaan barnaamij noocaana ku kulmi doono waxaan inkaga tegaynaa he haddaa video kan like garay weysiin